الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan soo haynay risaaladii almadkhal ilaa cilmi sarf. kanna waa darsigii shanaad. darsigeen intaanan gelin waxaan rabay inaan dib ugu noqdo safxada 11aad. والذي يدخل في الوزن شيئان: الأول الأسماء المتمكنة، الثاني الأفعال المتصرفة. waxaa jira hadal aan ka boodnay oo dabacaadkii hore haamishku ku qornaa laakiin hadda matnigaan saarnay. faqradani waxay ka hadlaysay kalimaadka la miisaamayo waa laba nooc: alasmaa'u almutamakkina ay almucraba iyo alafcaalu almutasarifa. waxay yihiin hore aan soo sheegnay. marka waxaan hadda laqbaynaynaa hadalka 80. wuxuu yidhi faama alxarfu xarafka falaa yuusanu lama wasno. sababta loo wasni waayo waa maxay? lianna algarada ujeedada bilwasni in kelimada la miisaama laga leeyahay an yucrafa alasliyu weeyaan, asalka in laga sooco min azaa'id, xarafka zaa'idka ah. bimacnaa kelimada waxaa loo wasnaa si loo ogaado xuruufta asalka iyo xuruufta zaa'idka. wuxuu yidhi marka walxuruufu xuruuftana laa yucrafu laha looma garanayo ishtiqaaqun meel laga soo qaatay. mathalan daraba waxaa laga soo qaatay min addarbi oo masdarkii ah. idan daraba marka laha ishtiqaaq, xarafku saas ma ahan. walaa aslun ay walaa yucrafu laha aslun, xuruuftan asal looma garanayo, asalkaasoo ukhidad minhu laga soo qaatay oo faturaddu ilayhi loo celinayo. waxaa laga yaabaa inaa isweydiisid laa yucrafu laha ishtiqaaqun walaa aslun ukhidat minhu, farqigu dhexeeya wuxuu yahay. farqigu dhexeeya waxaa weeyaan kelimada ishtiqaaq bay leedahay, waxaa laga wadaa usuusheeda meel kale laga soo qaatay. mathalan daraba oo ficlan maadin ah min addarbi baa laga keenay. walaa aslun ukhidat minhu mithaalkeedu wuxuu noqon karaa rajulaani waa muhanna, waxaa laga keenay min alrajul oo mufradkii ah. rijaalun waa jamcu taksiir, waxaa laga keenay min almufrad rajulun. idan lahu aslun ukhida minhu. farqigaasaa u dhexeeya, wallahu aclam. marka wuxuu yidhi walxuruufu xuruufta laa yucrafu laha ishtiqaaqun, ishtiqaaq looma garanayo, bimacnaa mushtaqun minhuna ma ahan, mushtaqna ma ahan. walaa aslun ay walaa yucrafu laha aslun, asalna looma garanayo, asalkaasoo ukhidat minhu laga soo qaatay oo faturaddu ilayhi loo celinayo, sida rajulaani asalkooda waa rajulun. intaasaan raba inaan baraarujiyo. dib aan ugu noqono tamaariinta. zini alkalimaati alaatiya: tariba wa calaa wasni faacila. lafdigan tariba macnihiisu waxaa weeyaan ihtaza min alfarax aw alxusni aw algham. qofka markuu aad u farxo ama aad u murugaysan yahay xarakaad buu samaynayaa. xarakadaas uu samaynayo baa tariba loo yaqaana. tariba calaa wasni faacila. waxaad ilaalisay alxarakaatu walsakanaatu waltartiib. shamsun wa calaa wasni faclun. saruwa calaa wasni faacula. qofka markuu sharaf leeyahay baa waxaa lagu tilmaamaa saruwa. ism faacilkuna waxaa weeye sariy, marka waa saaxibu muru'atin wa karam. saruwa calaa wasni facula. kelimada ku xigta waxaa weeyaan rumxun waa waranka, wa calaa wasni fuclun. ibilun calaa wasni ficilun. kelimada ku xigta cunuqun calaa wasni fuculun. lafdigan cunuq mufradna waa noqon karaa, jamcna waa noqon karaa. haddii mufrad la yidhaahdo macnuhu wuxuu noqonaya raqaba, waa luqunta. haddii jamc la yidhaahdo waa jamcu canaaq. canaaqna waxaa la yidhahdaa rida ama laxda. awlaadu almaciz waalqanam. weliba waxaa shardi ah ilaa tamaami alxawl, marka intaysan hal sana u dhammaanin waaye. almuhim cunuqun wasankiisu waa fuculun, ama mufrad ka laqbe ama jamc. lafdiga ku xiga waxaa waaye cadudun, wasankeedu waa faculun. cadud laba macno waa lagu macnayn karaa: in la yidhaahdo waa muruqa u dhexeeya suxulka iyo garabka, ama in la yidhaahdo bimacna almuciin waaye. qur-aankan waa ku soo arortay wamaa kuntu muttakhida almudiliina cadudan, ma ihi mid ka dhiganaya qorada dadka baadiyeysa oo xaqa ka leexisa, mid ka dhiganaya ma ihi cadudan ay acwaan iyo ansaar. almuhim wasankiisu isma bedelayo, cadudun waa calaa wasni faculun. kelimada ku xigta waa suradun. surad calaa wasni fucal. suradna waa shimbiraha yaryarkaa qaybo ka mid a. lafdiga ku xiga kabidun wa calaa wasni faacilun. kelimada ku xigta cinabun calaa wasni ficalun. lafdiga ku xiga cidlun wa calaa wasni ficlun. alcidlu bimacna almithlu wannadiir, shayga kale u dhigma ayaa cidli la yidhaahdaa. intaasi tamaariintan uga baxnay. su-aalahan u imaano. su-aasha koowaad: ما الذي يدخل في الوزن من الكلمات؟ جوابته حين قلنا الذي يدخل في الوزن الأسماء المتمكنة
والأفعال المتصرفة. لماذا لا يدخل التصريف في الحروف؟ جوابته حين قنكرته لأن الحروف لا يعرف لها اشتقاق ولا أصل أخذت منه. أما دا سوقا بيزيد حديه كرتا لأن الحروف مجهولة الأصل. نرسي ننتابك إيجي هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.